أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaanu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo Ramadaan. waxaanu soo qaadanaynay duruus ramadaaniye ah oo ku tacalluqaysa bishaan qaybaheeda. waxaanu ku soo dhex jirnay waxyaabihii manhiyo canhuga ahay oo la iska reebay oo soonku uu ku jabaayay ayaanu maaragtay ku dhex jirnay. hadda waxaanu soo gaarnay darsigeennii 19aad ayaanu soo gaarnay. darsigaan marka waxa weeye darsigeennii 18aad waxyaabo aynu ku soo qaadanay oo amuraas kamida qayb kamida ayaanu ku qaadanaynaa iyo waxyaabo kaleentood ayaanu ku qaadanaynaa. waxaanu soo qaadanaynaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis uu ka wariyey saxaabiga jaliilka ah oo la yidhaha abu hurayra. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi: man nasiya wa huwa saa'imun faakala ow shariba falyutima sawmahu fainamaa adcamahu allaahu wasaqaahu. lafdi tirmidi uu leeyahana wuxuu ahay: man akala ow shariba naasiyan falaa yufdir fainamaa huwa risqun rasaqahu allaahu. waxau dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, qofkii halmaama asagoo saa'im ahoo sooman inuu sooman yahay halmaama, fa akala ow shariba oo markaas wax cuna ama wax caba. waxaan ognahay wax cunidda iyo wax cabiddu inay ka mid ahaayeen waxyaabihii soonka looga dhowrsanayey oo markaasi soonka jebinayey. marka qofkan waxaa ku dhacay halmaan ayaa ku dhacay, isagoo halmaansan ayuu wax cunow dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ama wax uu cabay. arrintaas markay dhacdow dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, falyutima sawmahu, soonkiisa ha taam yeelo ha dhammaystirow dhahay. fa inamaa adcamahu allaahu, ilaahay ayaa quudiyey, wasaqaahu alla ayaa waraabiyey. marka qofku haddii waxaa weeye nisyaan uu ku dhaco oo isagoo wax halmaamay wax cuno ama uu wax cabo, waxaa lamida wax kasta oo soonka ka jebi lahay sida jamaaci oo kale ayuu sameeyey. marka wixiiba nisyaanba ugaga dhaca isagoo saa'ima isagoo camdi u sameeya soonku uga jebi lahay, hadduu nisyaankaas ku sameeyo soonkiisa ayuu dhammaystirayaa. wax markaasi waxaa weeye lagu leeyahayna ma jirto, maalintaasna waa iska soomayaa, waxba laga doonayana ma jirto. a'imada islaamka waxyaabihii markaasi ay ka qabeen waxwaanu ka soo marnay oo xadiiskeenii midkan ka horreeyey oo casharkeenna hore ayaanu ku soo qaadanay. laakiin xadiiska daahirkiisa sida saxiixa jamhuurtu ay qabaan waa sidan oo rasuulku u dhahay calayhi salaatu wasalaam, qofkii wax cuna waxna caba isagoo naasiyahoo halmaansan soonkiisa ha dhammaystiro. weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sii diray: fa inamaa adcamahu allaahu wasaqaahu, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa quudiyey, alla subxaanahu wa tacaala ayaana waraabiyey. marka wax hawshaas wax asaga uu ku leeyahay ma jirto, waa amuur markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa uu ka qahray. xadiiskaas waxaa weeye umahaadkao dhan ayaa wariyey. lafdi tirmidi uu leeyahay ayaa waxa uu ahay oo isla lafdiga kan shabaha: man akala ow shariba naasiyan. wuxuu dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam, qofkii wax cuna ama wax caba isagoo halmaansan, falaa yufdir, yowsan afurin, fa inamaa huwa risqun rasaqahu allaahu. waxaa weeye risqi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku arsuqay. waxaa dhici karta dadka caamada bacdigood inay haddii sidaasoo kale soonka wax ka jebiya ay sameeyaan ayagoo halmaansan oo qaafila, inay yidhaahdaana la arkaa soonkii waa iga jabay, marka sidaas daraaddeeda ayaan wax iska cunayaa. sideedaba soon haddii niyadana la halmaamo ama saasoo kale wax la cuno, maalin soon qaad in wax la cunaaho waa xaaraanba sideedaba.
xataa qofku haddii sidaan soo marnay camdi kas ama ulakac uu maaragtay soonkiisa u jebiyo waajib waxaa ku ah maalintaas inta ka dhiman inuu soomo waajibay ku tahay maalintiina waa soo qallaynayaa laakiin qofkan markaas si naasiga ah haddii waxaa weeye soonkii wax ka jebiye uu sameeyey soonkiisi waa u jiraa halkaas ayuu ku celinayaa shaygaas halkaasuuna maaragtay ku dhammaynayaa hadday masalan ba dhacdo isagoo waxaa weeye samaynaya ama isagoo wax cunaya ayuu arkay subaxdii oo u maleeyey inay markaasi ay weli habeen uu jiro ama wax jimaacaya markay u caddaato isla markaas ayuu ka joogsanayaa isla markaas meeshaasuu ku joojinayaa soonkiisana waa wadanayaa maalintaasna waa soomayaa soonna laga dooni maayo waxaa kaloonu soo qaadanaynaa xadiiska hadda aynu sheegayno isagooba nas ah xadiis ay warisay asma binti abi bakar sidiiq radia allaahu canhumaa gabadhii sayidina abubakar sidiiq ayaa waxay tidhi afdarnaa calaa cahdi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama yowma qaymin suma dalacat الshamsu qiila lihishaam faumiruu biاlqadaa'i qaala laa budda min qadaa'in rawaahu lbukhaariyu wa abu daa-uud waxaa weeye asma binti abi bakar waxa ay werisay waxay tihi waxaan afurnay tiri waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam zamankiisi maalin oo waxa weeye daruuro ay jirto ayaanu afurnay annagoo maalintaas daruurta ay jirto u malaynayna qoraxdii inay dhacday suma dalacat ishamsu qoraxdii ayaa soo dhalatay marka oo markii la afuray kabacdi ayaa waxaa la arkay qoraxdiioo taaganoo aan dhicinba raawiga xadiiska ka wariyoo la dhihi jiray hishaam ayaa waxaa la yidhi fa umiruu bilqadaa'i qallama la amray oo asma ma sheegtay in qallo la amray markaasuu dhahay laabudda min qadaa'in ou dhahay laga maarmaan weeye qallo in la amro waa laga maarmaan ayuu dhahay marka hadda laabudda min qadaa'in ayuu dhahay qallo inay la yimaadaan waa laga maarmaan axkaamtaasu hadda sidaas miyay maaragtay yaa ku tegeysaa xadiiska horta waxaa wariyey bukhaariyaa wariyey abu daa-uudna waa wariyey marka asma binti abi bakar waxay leedahay maalin oo waxaa jirtay oo ramadaan ah oo daruur badan ay cirka saaran tahay waxaan malaynay tiri markaasi qoraxdii inay dhacday waanu afurnay markii kabacdi ayaa qoraxdii soo dhalatay marka mid qaa'ilahoo hadlay ayaa hishaam ibnu curwata ninkaa la yidhaaho raawiga ka wariyey maaragtay wuxuu ka wariyey isagu zawjadiisa oo ayaduna markaasi asma ka warisay xataa hishaamkaanu isagu asma lama uusan kulmin markaasuu waxau dhahay hal amarahum shaaricu bilqadaa'i shaaricu ma amray inay soo qalleeyaan markaasuu wuxuu dhahay alqadaa'u laabudda minhu qallo laga maarmaan waaye marka xadiisku wuxuu sheegaya daahirka markii la fiisho qofkii maleeya qoraxdii inay dhacday ee saas ku afura fa dahara khilaafuhu waxa uu maleeyahay wax khilaafsanna ay soo baxaan fa innahu yajibu calayhi alimsaak waxaa waajib ku noqonaya maalinta inta ka harsan baqiyata alyowm waa lixurmati alwaqti waxaana waajib ku noqonaya qallo ayaa ku waajibaya maxaa yeele soonkiisaa fasaaday laakiin kafaara korkiisa ma ahan waxaa lamida qofkii markaasi cuna asagoo malaynaayo baqaa'a leyl habeenkii inuu baaqi yahay fa baana lahu ana aklahu kaana nahaaran markaas waxaa u caddaatay cunidiisi inay maali aheeday imsaaq ayaa ku waajiba baqiyata yowm iyo qallo lifasaadi sawmihi bilakli wa calayhi aljamhuur walaa'imatu alarbacatu laakiin hadda waxa weeye jamhuurtu sidaasay qabaan ayaa la yidhi iyo a'imada afarta ah laakiin sida hadda raajixa ah waxa weeye waa la kala qaadayaa fuqahada markaasi waa ay kala qaadeen haddii waxa weeye maalintii iyadoo ay dhiman tahay ay tahay oo maalintii wax ka dhiman yihiin qofku hadduu saas ku afuro maalintii ay caddaato inay markaasi qoraxdii aysan dhicin qofkaas maalintaas inta ka dhima waa af haysanayaa waana soo qallaynayaa
maxaa yeele asalku waxaa weeye baqaa'u nahaar weeye maalintii inay baaqi tahay sidaas ayaa maaragtay asala. middan kale way ka duwan tahay oo haddii masalanba habeen la joogo ee markaasi qofka isagoo habeen inuu weli baaqi yahay u malaynaya sida dadka saxuuranayo oo kaleentood haddii waxa weeye ay wax cunaanay arkaan ayadoo fajirka dhashay oo qoraxdii markaasi waxa weeye fajarkii salaadii subax ay dhalatay oo markaasi cuntadii ay xaaraam aheeday asagana markaasi uu u malaynayo in habeen uu jiro waxaa laga doonayaa isla waktigaas inuu joojiyo hadduu jimaac ku jira iyo hadduu cunto uu ku cunayo wax cunayo ama wax cabayey halkaasuu ku joojinayaa maalintaasna waa soomaya qalana laga dooni maayo maxaa yeele waxaa leeyi lianna alasla baqaa'u leyl yaa leeyi asal waxaa ahay habeenku inuu baaqi yahay markaan horo hadda ay sheegaysa xadiiskan asmaane waxaa weeye maalinta ayaa asal ahaaday saasay marka ku kala duwan yihiin dadku inay saas u kala ogaadaan la rabaa arrintaas wax badanay marka timaadaa xadiis waxaanu soo qaadanaynaa isagana laga wariyey saxaabiga jaliilka abu hurayra oo nabiga uu ka wariyey rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man daracahu lqay'u wa huwa saa'imun falaysa calayhi qadaa'un wa in istaqaa'a falyaqdi qofkii waxaa weeye mantag uu ka qaalib noqdo mantag uu ka xoog badiyo isagoo saa'im ahoo sooman falaysa calayhi qadaa'un qalo laga dooni maayo qof masalanba waxaa weeye maalintan isagoo sooman ayaa mantag ka qaalib noqdayoo mantag ayaa soo dhowday sidaas ayuu ku mantagay waxaa weeye qofkaasu maalintaas intii ka harsanna soonkiisa waa dhammaystirayaa qalana laga dooni maayo hase yeeshee wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waman istaqaa'a falyaqli ayuu dhahay qofkii laakiin mantaga iska raadiya oo asagu ismantajiya ha soo qaleeya ayuu dhahay qofka hadduu asagu ismantajiyo soonkii waa ka jebayaa inuu ismantajiyana xaaraam weeye maalinta inta ka dhimanna waa uu soomayaa waana soo qalaynayaa maalintaas riwaayad kalea waxay ahaydee waman istaqaa'a camdan lagu daro weeye qofkii ismantajiya oo si kasa isu mantajiya falyaqli ha soo qaleeya ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas waxaa wariyey asxaabu sunan ayaa wariyey xaakimna waa wariyey waana saxiix yeelay marka sidaas ayaa loo kala qaadayaa qofka haddii mantagu ou isagu iska soo dhowdo oo mantagu uu ka qaalib noqdo waxa weeye waa iska soomayaa maalintaas waxna kama jebin qalana laga dooni maayo laakiin haddii qofku mantaga isagu uu wacdo oo isagu ismantajiyo waxa weeye qofkaasi waxa weeye waa maalintaas horta waa soomaya oo xurmatulwaqtiga u soomaya maalintaas inuu wax cuno xaaraam weeye hase yeeshee soonkaasna waa soo qalaynayaa oo qalo ayaa loogaga doonayaa waxyaabaha la iska reebay waxaa ka mida marka la sooman yahay waxaa la yidhaahda almubaashara waalqubla in markaasi waxaa weeye raggi iyo dumarkii isqabay inay istaataabtaan oo isishumiyaan waxyaabahaas mubaasharadaa inay sameeyaan waa ay reeban tahay marka qublada waxaa la yidhaahdaa waa macruufo waa la iska yaqaanaa dhunkooshada waa la yaqaanaa mubaasharadu iyaduna waxaa weeye allamsu bilyadi gacanta wax lagu taabtaa la yidhaah waalmucaanaqa wa naxwihimaa iyo markaasi qoorta la isdhaafsado iyo wixii lamida mimaa yusiiru shahwata waxyaabaha shahwada kicinaaya in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yaha taas iyadana mubaashara la dhahaa arrintaasaa marka waxaa weeye ayaduna waxay ka mid aheeday waxyaabihii manhiyo canhuga ahay oo la iska reebay soonkuna markaasi waxaa weeye uu ku jabaayey ayay ka mid tahay waxaan soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey abu hurayra waxa uu dhahay ana rajulan sa'ala الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama can اlmubaasharati liلsaa'imi farakhasa lahu waataahu aakharu fasa'alahu fanahaahu faidan aladii rakhasa lahu shaykun waladii nahaahu shaabun rawaahu abu daa'uud wاlbayhaqiyu wasaxaxahu waxaa weeye xadiiskan laba arrimoodaa ku jirta nin markaasi arrintaas loo ruqseeyey iyo nin nabigu calayhi salaatu salaam uu ka diiday intaas ayaa isku jirta
وهو أبو هريرة nin ayaa rasuulka calayhi salaatu salaam u yimiday markaasaa waxa uu ka su'aalay mubaasharadii ayuu ka su'aalay taabashadii oo haweenta la taabto iyadoo markaasi loo taabanayo calaa sabiili alistimtaac iyadoo lagu raaxaysanayo saas loo taabto qofka saa'imka ah inuu haweentiisa sidaa u taataabo karo iyo in kaleentood ayuu ka su'aalay weliba ninkaanu markuu su'aalayo asaga ayaa inuu arrintaas sameeyaa doonaya abu hurayra wuxuu dhahay farakhasa lahu nabigu waa u ruqseeyow dhahay oo waxau dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam fasaxaad qabtaa sidaa markii uu dhahayoo ninkaas loo ruqseeyey wa ataahu aakharu ayuu dhahay fasa'alahu nin kale ayaa haddana nabiga calayhi salaatu salaam u yimiday markaasuu arrintaasuu ka su'aalay fanahaahu nabigu calayhi salaatu salaam waa ka reebayoo ma la ogolow dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam arrintaas see weeye marka rasuulku calayhi salaatu salaam ninna waa u ogolaaday ninna waa ka diidee waxau dhahay markaas abu hurayra arrintii aan u dhabogalnayo fa idan aladii rakhasa lahu shaykhun ninka nabigu calayhi salaatu salaam u ruqseeye nin odayahow ahaayow yidhaah nin odaya ayuu ahay ninkaasu waaladii nahaahu shaabun ninka nabigu calayhi salaatu salaam uu ka reebane wuxuu ahay nin dhallinyara ayuu ahay marka dadka ayaa xaaladahoodu kala duwan tahay maxaa yeele soonkii inuusan jebin ayaa la doonayaa marka ninka nabigu calayhi salaatu salaam mubaasharada uu u ruqseeyey taataabashada waa ninka odogaahow ahay nin da-ahow ahay maxaa yeele ninka da-daahu wuxuu awoodi karaa shahwadiisa inuu ilaaliyo ayuu awoodi karaa ninka dhallinyaradana waa u diida rasuulka calayhi salaatu salaam maxaa yeele dhallinyaradiisa bilowgeeda ayuu ku jiraa ma awoodiyo marka naftiisa inuu wax ka celiyo fa idaa caanaqa imra'atahu haweentiisa hadduu shushumiyo ama uu luqunta isdhaafsadaan qoorta isdhaafsadaan waqaca fi ljimaac jimaac ou ku dhacaya ow cala alaqal anzala fabadala sawmuhu waxaa laba arrimoodaa imaakaraysa inuu waxa weeye jimaaci ou ku dhaco iyo inuu maaragtay waxa weeye mani ou dejiyo oo insaalulmani ou yimaado taasoo idina soonkii jebinaysa insaalulmanigana haddee manida la dejiyo hadday ku timaado mubaasharada soonkii waa ku jebayaa laakiin qofku asoon waxaa weeye mubaasharo aan samaynin haddii masalanba fikir ou fikiray iyo maaragtay ama asagoo maalintii jiifsaday haddii waxa weeye ixtilaam ou ku dhaco kaa soonkii kama jebaayo maxaa yeele asagu markaasi ma wacanin arrintaas marka waxa weeye sidaas ayay ku kala duwan yihiin marka arrintaas in loo fiirsadaa la rabaa xadiiskaas abu daa-uudaa wariyey bayhaqina waa wariyey waana saxiix yeelay marka amuurihii oo la iska reebaayey oo kale waxaa ka mid a caaisho waxay tidhi kaana nabiyu sal allau alay salama yuqabilu wa yubaashiru wahuwa saa'imun wa kaana amlakakum liirbihi nabigu calayhi salaatu salaam waa shumi jiray waana maaragtay taataabo jiray isagoo sooman laakiin midka xaajadiisa hanasho badan u ahayo sidiinoo kale ma uusan ahayno nabigu waa ishubay marka qofka ishubo sidaasoo kale ama da-da waa loo ruqsaynayaa laakiin asna waxaa usii khayr badan inuu ka tago marka hadda darsigeeni 19 intaasuu noogu dhan yahay hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu